kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu la yeelan doono Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo ah afhayeenka ismada Puntland ahna afhayeenka ismada guud ee beelaha daarood ugaas Maxamed kusoo dhawow CNA TV aad baan u dhawahay waadna mahadsantihiin booqashada wanaagsan aad igu timaadeen waad mahadsantahay sidoo kale oonu kaga mahadcelinaynaa waqtiga aad nasiisay bal marka hore waxaad sharaxaad naga siisaa ereyga isim mise ismada waxa la dhaho bismillaahir rahmaanir rahiim isim waxa la yiraahdaa waa magac guud oo salaadiinta Soomaaliyeed ama isinka kulmiya sida tusaale ahaan markaan soo qaato kale dumar waxa isugu yimaada gabar mid la qabo mid inana iyo mid weyn ayaa dumar isugu yimaada isimada marka Soomaaliya dhan ayuu magacaas kulmiya isin laakiin gobolada ayaa qofba erey gaara uu la baxaa ama isticmaalaa sida hadda goboladan ka soo jeedo Puntland isimada ayay dhahaan isimada hadduu garaad yahay hadduu beeldaajo yahay hadduu ugaas yahay hadduu yahay islaan iyo hadduu yahay suldaan inta ayay la baxaan goboladan ka soo jeeda goboladan bay iyo bakool iyaguna waxay malaaqiyo iyo weber iyo islow marka islaanka ayaa isinka ayaa mideeya goboladan caasimadoo kale iyagu waxay isticmaalaan iimaan oo kale ayay isticmaalaan goboladan waqooyi sida Hargeysa iyo laftooda waxay isticmaalaan suldaan sidoo kale ugaas bay isticmaalaan boqor bay isticmaalaan marka iyagu waxay dhahaan salaadiinta bay dhahaan salaadiinta dhaqanka ayay dhahaan marka waxa mideeya isinku waa magacaas oo dhan oo ismada Soomaaliya ku mideysan yihiin ama garaad ha noqdo ama suldaan ha noqdo ama weber ha noqdo ama islaan ha noqdo ama iimaan ha noqdo ama amiir ha noqdo waa saas weey waanu garanay marka ereygan markii laga soo tago muxuu qabtaa shaqadiisu maxay tahay ereygan islaan iyo leeyahay isinko kale wuxuu qabtaa waa gudoon iyo ducayo leeyahay reerka ayaa ku marti safra qofkii gudoomin lahaa oo ducayn lahaa oo u ergatagi lahaa horjooga ayuu yahay haddii reerka wax lagu yeesho sida dhaqanka Soomaaliya ahaan jiray ama mag ama garo kale dadku waxay soo abaari jireen isinka meesha ka taliya ama boqorka ha noqdo ama garaadka ha noqdo ayaa loogu tagi jiray isinka ayaa dadkaas marti qaadi jiray sooriyeen jiray gartoodana qaadi jiray marka ayuu dadkiisa ula noqon jiray haddii wax lagu leeyahana wixii ka soo qaadi jiray haddii iyagu wax leeyihiin uu u tagi jiray marka isinka la yiraahdo Soomaaliya dhaqanku wuxuu ka yahay meesha ugu sareysa sababtoo qofka isinka hadduu boosaaso joogo oo xamar tago ama Hargeysa tago qadarin gaar ayuu lahaa oo reerkaas oo dhan isinkoodii oo kale ayuu ahaa waa la soo dhaweynayay waana la erga qaadayay marka isinku waa marti sharafeed lagu shafro reerku qof ay ku shafraan qofkaasuna uu reerka horjoogo u noqdo oo laga soo galo ilaa hadda dal markaad soo galayso albaabbaad ka soo galaysaa ama border baa ka soo galaysaa ama control baa ka soo galaysaa marka rabto tusaale reer hebel baan rabaa waa in wix markay ka galaan aad doontaa isinkoodii oo isinkoodii aad u garrigataa talaaniyo dhigaas in ka dhacay ama geel baa la iska dhacay ama gabar baa la faraxumeeyo tusaale ahaan sidaas weeye marka isinku waan gartay ereygan isimka aynu ku laabano markii la dhaho Soomaalida badankood niyadooda waxa ku soo dhaca oday koofiyad ama fadhiyo oo geed hoos fadhiya haatan dibadda iyo qurbo iyo odayaashii waxay ka yihiin ismi iyo suldaan ka yihiin shaqadoodu maxay tahay waagi hore isinku wuxuu fadhiyi jiray geedka ama dhaqanka baadiya inagu marka Soomaali hadday nahay baadiyan u badnayn reer guuraabeen ahayn marka isinku guriga reerka kale ama dadka kale waa ka sheegnaa oo guriga isinku waa lagu xisaabtami jiray laakiin hadda adduunka isbedel baa yimi horumar baa yimi aalaad horumar dhibaatimi marka isinku wuxuu ku qasban yahay inuu dadkii maadaama magaaladii baadiye ka guureen oo qurbihii qaarkood tageen oo qaarkood magaaladii ay tageen inuu fariisimo ka suubiyo si uu dadku isinka u ahaa uu la qaybsado ahwaashooda iyo waxay ku sugan yihiin iyo waxa ay joogaan marka taas ayaa ka liftay marka qurbihii markii la imaaday Soomaali kali lama gartamahayo oo gool looma dhigan hayo dad qalaad oo ajnabi ah ay joogta dadkaas sidaba isku fahantaan gartayse ma u qaataan qaabka Soomaalidu u qaadato kale waa difference dadkaas aan la dhaqanahay oo hadda qurbaha jooga sida hadda dalka la Australia hadda anigu aan ku dhaqanahay oo aan joogo iyo dalka Sweden oo kale boqortooyo ayaa ka talin jiray marka dhaqanka way yaqaanin dhaqankana way tixgeliyaan hadda tusaale aniga markii hadda aniga isoo dhaweynayeen ama ay qaabilayeen
sida hadda tusaale ahaan baasaboorada oo kale qofka looguma dhajiyo wax la yidhaahdo sawirkiisa isagoo koofiyad qaba laakiin iyagoo ixtiraamaya dhaqanka ayay baasaboorka isagoo koofiyad qaba ayay ku dhajiyeen 3 magac baana baasaboorka lagu qoraa sidii qof walba og yahay cali faarax jaamac laakiin saldanada ayay muujiyeen magaceedii suldaan maxamed suldaan yuusuf iyagoo tixraacaya dhaqanka wuxuu yahay markii aanu tagno kaar kale oo dhaqana ayaan leenahay oo nala ku tixgeliya markay xalfada qabaan ama laysu imaanayo ama dhaqankooda ay ka hadlayaan annagoo dhaqankayga ayaan soo bandhignaa iyo wixii aanu ahayn iyo waxaan Soomaalidu nahay ta kale oo soo hartay garta iyagu waxay leeyihiin qawaaniin iyo sharci u degsan iyagu diin ma laha intaasoo qowmiyadooda oo kala diin ayaa ku nool laakiin sharciga iyo qawaanka ay degsadeen ayay maraan marka anagu haddaan dee ugu tagno si maslaxada ama arrintan si gaar aan u dhamaysanayna oo wax dhacaan way naga qaataan laakiin waa inaan u soo celinaa in wixii aan dhamaynay oo saxiix naga qaadaan haddii aan dhamayn weynina waan u soo celinaa oo shuruucda iyo qawaaniinta u degsan ayaanu ku qanacnaayo ay maraan taas ayaan ku waad mahadsan tahay suldaan aynu u salaabano bal waxaad nooga warbixisaa xaaladda guud ee dalka khaasatan Puntland oo aad ka soo jeedo dalka guud ee marka hore ka hormaro Soomaaliya hadda xaaladeedu 100% hadda way fiican tahay wax hadda dhibaato oo abaara ma aha wax hadda ka jira ma jiraan markii aan ku soo noqdo Puntland oo kale isbedel baa ka dhacay sanadkan hadda in ku jiro madaxweyne iyo maamul 5 sano dalka haystay oo horkacay ayaa waxa ka guuleystay madaxweyne kale oo 60 ka xildhibaan ay doorteen leeyahay Abdullaahi Saciid Abdullaahi Deni iyo madaxweyne ku xigeen Ahmed Karaash iyagana hadda wax dhibaato oo la sheegaa dalkii kama jiraan runtii barwaaqo iyo baraare ayaan ka jidha waxaan rajaynayaa runtii in intaas ay wala sii dhawaan doonto oo dalku uu noqon doono dal runtii nidaamka federaalka qaata lana shaqeeya dawladooda marka hadda Puntland runtii wax ka jira hadda waan qiyaasi karo oo hadda aan arab ku dhufan karaa oo hadda qeyladana ma jiro suldaan waayihii u dambeysay kufsiga tacdiyada ka dhanka dumarka sida kufsiga dilalka ayaa ku soo badanaya Puntland arintaas maxaa sababay arintaa horta aad iyo aad falxun weeye waana falxun oo Soomaaliya aan laga aqoon gabar waa la farxumeyn jiray laakiin misna waa laga xaari jiray xeer bay lahaan jirtay farxumeyntu waa dhici jirtay laakiin waxaan dhici jirin kufsi wadareed waxaan dhici jirin qofkii oo naftiisa la dilo runtii arrintan ku cusub ayay noqotay Soomaaliya khaasatan Puntland hadda bariyahan way ka soo cusboonaatay horta arrintaa shakhsi ahaan dhaqanku waa cambaaraynaya baaqaq badanna waan ka soo saaray arrintaa wax laga qabanayo dalkina waxa ka jira xukuumad xukuumaduna waa wiilashayadii iyaga ayaan u xil saaray inay dadkii kiiska galay la soo qabto la cadeeyo maxkamad la taago wixii shariicada islaamka ka qabto ama qawaaniinta caalamiga ee anagu caalam bay ku noolahay in lagu fuliyo waxaan aad u hambaliyaynayaa Garbaharey degmada Garbaharey fal ka dhacay oo si wanaagsan ay u fuliyeen reer Garbaharey marka way ku dayasho mudan yihiin Puntland waxaan ka rajaynaynaa dumarku waxay leeyihiin xuquuq gaar ah iyo dhaqan iyo tixgelin gaar ah wayna dhaleen wayna dhasheen wayna la seexdaan waa reerkeeni marka in lagu xadgudbo wax aad iyo aad looga xun yahay weeye marka waxaan rajaynaynaa maamulka Puntland hadda ka jira oo madaxweyne ugu sareeyo Cabdisamed ninka la madaxweyne Saciid Abdullaahi Deni inuu sharciga hor keeno dadkii falka dambiga geystay la soo qabto waxay leeyihiin odayaashuna ku taageerayaan inta badan marka ay dhacaan tacdiyadaas oo kale sida kufsiga oo kale waxaa la sheegaa odayaashu in ay xabadka u garaacdaan oo dhahdaan arrintan annaga soo dhamaynayna arrintiina aad qaab cadaalad barbar masanaad ku soo dhamaysaan ma la isdhihi karaa laftirkiina waxaad ku leedihiin arrintaas saameyn baad ku leedihiin ma la isdhihi karaa ma la isdhihi karo ismadu guddoon iyo duca ayay leeyihiin waxaa jira haddii faraxumayn yar ay dhacdo in nabadoonnada iyo samadoonnada iyo cuqaasha naga hooseeya inay arrintii si maslaxa intay labada garba u galaan maslaxaduna way jirtaa ee iyagu ku dhameeyaan mar haddii maslaxadii ay timaadana maamulkuna uu hoggaansamaya haddii labadii garabba ay ku heshiiyeen arrintii in maslaxad lagu dhameeyo weligeedana ku dhaqmayna dhaqan Soomaaliyeed in maslaxad wax lagu dhameeyo laakiin isimadu waxay hadda go'aan qaateen oo baaqaq badan ka soo saareen sida Gaalkacyo iyo Garowe iyo Boosaasoba in cidii kufsigaas soo bisay ilaahayna ma banayn
in ilmo yaroo 7 sano jira la faraxumeeyo waxaan ilaahay raalli ka ahayn lagu suubiyo marka isimadu baaq bay ka soo saareen qoraal bay ka soo saareen in sharciga la horgeeyo haddana waxaanu ka sugaynaa xukuumaddii oo dee arrintan ku faraha kula jidha inay sharciga hor keento waxaan rajaynaynaa dhowaan insha allahu tacaala in arrintaasu si loo baahnaa ay u imaan doonto booskoodi laakiin markii ay dhacdadaas oo kale oo gabadh la kursado waxaad cadaalada kaga hareen dhinaca uga mareysaan ma la isdhihi karaa gabadh baa intii la faraxumeeyo iyo neef geel ah oo kale tusaale intaa kasoo qaadaan bad reerkii gabadha ka dhalatay aad siisaan arrintaas miyan ahayn arrin cadaalad darro ah dhaqanka iyo xeerkuba waxyaalo gaara baa jira oo maslaxada haddii maslaxad labada reer ay ku heshiiyaan oo iyagu ay ku heshiiyaan inay wax kala qaataan xeer baa dadku dhaqan ibuu leeyahay taasaa la fuliya tusaale hadeer qofka bini aadanka marka la dilo in la cafiyo qofkii dhibta loo geystay iyo inuu toogto iyo inuu maka qaato intaba way banaantahay xagga diinta marka haddii labada beelood iyagu ay ku heshiiyaan haddii annagu shaydaan ma noqonayno kala jiidi mayno waxay ku heshiiyaan baan guddoominaynaa oo ugu ducaynaynaa marka waa samarsiis baan u arkaa laakiin tanu taa way ka duwanta tan waa fal runtii aan habboonayn oo kufsi wadareed dhacay oo xun marka arrintaa meel baa looga soo wada jeestay sidaan horeyba uu idinku sheegay idinka haddaad tihiin isimada dhaqanka iyo salaadiinta iyo odayaasha arrintaas door intee la eg baad ku leedihiin ka wacyigelinta bulshada markii wax dhacaan qaabkii aad oga filcelin lahaydeen arrintaa doorka ugu weyn baan ku leenahay sababtoo ah waxaanu nahay bulshada horjoogahoodii waxaanu nahay bulshada duubkoodii iyo cimaamadoodii waxaanu ku leenahay arrinta ugu muhiimsan inaanu ka wacyigelino waxaan ilaahayna inaanu bannayn culummadana aan la kaashano xagga diintana lagaga hadlo xagga dhaqankaana lagaga hadlo iyaguna haddii bulshadu inay qaataan ayaan runtii rajaynaynaa in badanna arrintaa waa ka hadalay haddana waa ka hadli doonaa waa loo balansan yahay haddii arrintan hadda tagarow ka dhacday iyo tagaalkacay ka dhacday labadaas hadda taagan iyagana hadda baaritaan baa ku socda dadkii loo falkaa geystana way xirxiran yihiin marka wixii markii lasoo baaro ayaa maxkamad la keenaya waxaan rajaynaynaa doorka ay qaadatay reer garbahaarey inay reer garow iyo reer gaalkacyood iyo puntland ba aanu qaadano haddii ilaahay qadaro waana muhiim taas marka kufsigan kusoo badan haya iyo tacdiyada ka dhanka dumarka sida dilalka oo kale yaa la isdhihi karaa mas-uul buu ka yahay arrintaas runtii waa wax nagu cusub qofkana waxa ku cusub hadduu arko uu la yaabay uu ku diimaa marka arrintaas waxaanu leenahay meelaa laga soo majaro guuriyey oo runtii ururo iyo waxbaa ku shuqul leh laakiin hadda wax caddayna oo aan hayno miiska aan keenayno ma jidho laakiin shakhsi ahaan anigu waxaan isleeyahay arrintan waa injoo la soo qaatay sababta qofka waa Soomaaliya meel cidla qaraba inta lagu kufsado xataa dhici jiray waa laga tagi jiray gabadhii oo la kufsaday baa leeyahay reer hebel baa kufsaday waa loo yeeri jiray waa laga xaari jiray wixii dhaqan ayaa la marin jiray حتى مركي قبل كفسو قدوا حتى أو نكفسو حتى ولقوا ميلين جلو قبل ولقوا درج وحول جل قبل ما دعوة كفسطي حتى قاضوا أورسو لكن هذا وحي واحد كي مسروق كجراية مركي وحن سلنا هاي ما جروب كلا حاجة واقع رزق وتيل برينج لقلة جرو ما حد سارجري ده جروب يكلا دو مرك حد اللي دكوا بعدين تنجوا كسوقاتي عدني جرت السجار أوتوميس ما يهد عد سجار وفرت أنا في غيبته لكن ده مسقعد مركي شقيسو رقم سومالي عصبوي dhaqan la lahaan jiray maaha marka inta dubanin gabar yar oo 7 sano jida intay farxumeeyaan inay isha ka tuuraan oo madaxa ka tuuraan oo jabiyaan oo jawaan ku xiraan meedkooda halka dhigaan waa rin nagu cusub bini aadanka dhan baa maskaxdiisu qaadan karin iska daa islaamka ama reer Soomaaliya ama reer Puntland ama reer Mudugba ama reer Gaalkacyoodba arrintaas marka arrin runtii nagu cusub weeye waana cambaaraynayna waxaan ugu baaqaynaa in meel looga soo wada jeesto shacab saxaafad dhalinyaro wada dhaqameed iyo xukuumadba waxaan la suubinayaa wax lagu suubinayaa birmageydada waxa la yiraahdaa dhaqanka dumarka caruurta iyo odayaasha wadadkan birtu geeyin wadadkan waxba lagu suubin karin marka arrinta runtii waan ka soo horjeednaa waan cambaaraynayna marka laga soo tago dawladda iyo shacabka idinka hadaatiin isimada maxay inay ka qorsheysan arrintan waxaad moodaa in ay soo laalaabanaysa arrintan hadda bilahan bay bilaabatay inta sanadkan bay horta bilaabatay hore uma jirin haddana waxa gacanta lagu hayaa wixii marka waxaan ka warsugaynaa bal xukuumaddu waxay keento laakiin xukuumaddu markay waxay keento ayaan goorta anagu ku dhaqaaqaynaa ilaa anagu xukuumadda odayaashoodii baanu nahay
xukuumaddii baana meesha ka shaqayso aan hawshan u dirsanay marka xukuumaddii waa adeegi shacabkii iyo dowladda dadkii bay u adeegaysaa annaguna guddoonkii baanu leenahay isimaduna shacabka iyo xukuumadda ayay u dhexeeyaan oo labadaba isimadooda yihiin markii xukuumadda iyo shacabku iska hor yimaadaan isimada ayaa dhex gala isimadaana go-aan ka soo saara xukuumadduna waa ku qanacdaa shacabkuna waa ku qanacaa marka hadda waxaan sugaynaa weli hadda xukuumaddii bay ku jirtaay bal xukuumadda markay ka soo baxdo ayaan goortaa tallaabo qaadi doontaa dhaqanku qaadi doonaa insha allahu tacaala xukuumaddu arrintan sidee bay uga falcelisay markay dhacday xukuumaddu arrintan sida aan ka warhayno ama la wada ogyahaba dadkii falkan dembiga ku lahaa oo dhan way soo qabatay way xirxidhan yihiin baaris baa ku socota waxay ku jiraan jeelasha Puntland sida Garowe iyo Gaalkacyoba waxaanu ka sugaynaa marka oo rajaynaynaa in baaristaas ay soo dhamaato marka anaguna baaristi ka hor dhici mayno oo markii waxaas ay soo dhamaadaan oo maxkamadda ay yimaadaan insha Allah tacaala ayaa go'aan ka soo baxa ayaanu gudoominaynaa kuna ducaynaynaa dhowr dhacdooyin oo kala duwan oo waqtiyo kala duwan baa dhacay ma jirta dawladdu cid ay u soo qabatay oo xukun u marisay oo intii sanadkan hadda wali way socotaa xukuumaddu wali hadda waxay keentay oo la karo sida qofkaasaan aragnay deemidiyuhuna ma hayo annaguna ma hayno ma la dhigi karaa marka xukuumaddu way gaabisay maadaama ay dhacdadii hore oo dhacday oo falkii la baarahay tu kale ka daba dhacday tu kale ka daba dhacday ma dhigi karaa xukuumaddu halka way ka gaabisay ma dhigi karo because xukuumaddu hadda waa xukuumad cusub weeye hadday dalka timi marka waxaan sugaynaa ka hor dhici mayne bal inta waqti ay ku qaadato sababtoo waxaan wax la baarayo waa kiis weyn weeye waa dad badan oo faldambiyeed baa arrintan suubiyey wax shakhsi iyo labo iyo saddex bas suubisay maaha marka waa ka war sugaynaa waxaan rajaynaynaa inay bishan hadda ku jiro afraad ay soo gabagaboobi doonto sababtoo annaga hadda waqtiga qofka la siiyaa 3 bilood baa la siiyaa xageega sida Yurubiyaanka oo kale qofku wuxuu xaq u leeyahay 3 bilood inuu arrintaas soo baaro oo ka soo baaraanto haddii ku filaan weydo wuxuu qaataa waqti dheeriya 3 bilood baa loogu diraa haddii inta uu keeni waayo go'aan bay maxkamaddu ka soo gaadhaa oo soo saadhaa marka waxaanu leenahay hadda waqtigii lama gaarin bishii koowaad iyo labaad bay dhacday waan ka warsugaynaa xukuumaddu inay keento meel ugu fiican baan rajaynaynaa oo laftigeeda waa kala hadal dhaqanka xukuumadda waa kala hadlay waan la isku afkartay arrintaa in si wada jira wax looga qabto cidda ku howlan falalkaas oo kale mise geysatayba waxaa laga yaabaa hadda inay ku daawanayaan maxaad dhihi lahayd cidda falkaa geysatay waxaan leeyahay waxaan la argo la maqal bay suubiyo horta islaamka Allah ka soo qabto qofkuna hadduu dhib dadka ku hayo hadda waa loo duceeyaa ilaahay meel kale u geeyo marka iyagana waxaan leeyahay ilaahay dadka iyo islaamka waa ka qabto wixii kale oo falkaa doonaya inay suubiyaan waxaan ugu baaqaynaa inay waxa iska daayaan ilaahoodna ay ka baqaan haddii ay rabaan gabdhahana ay guursadaan gabdhaha iyo waalidiinta laftooda waxaan ugu baaqayaa inay guurka fududeeyaan oo gabdhaha iyo wiilashaba la isu guuriyo haddii guurku fududaado sinadan iyo waxan iyo dhalinyaradu ay ku kacayso way ka baxayaan marka arrinta waalidiinta sabay aad leedahay arrinta waalidiintana waxaan leeyahay fududeeya guurka sababtoo dhalinyaradu way soo kacaysaa dalkeena shaqo la'aan baa ka jira dhaqaale la'aan baa ka jira shahwad baa ilaahay ku abuuray in badan carruurta gafka loo geysanayo waa carruur yar oo andha age oo 9 jir iyo 10 jir ah arrintaas guurka waa adkaada ma sababi karto waa run kuwa sulftooda waa kuwa yar laakiin dadka hadda waxa u geystay wadada wax ma yaqaan ku tilmaami kara kuwa waxa geystay wax ma yaqaan laakiin journal baan ka hadlaya mar haddii guurkii la fududeeyo oo gabdhihii ay fududeeyaan oo gabdhihii dhahan xalfad noo qabo wiil yar oo dugsi sare ka soo baxay ama waxba haysa markay tira xalfad ii qabo aroos ii qabo sida hebla uga shid wiilka wasiirku dhalay uga shiday ma suurtoobayso marka waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in waalidiintuna ay guurka fududeeyaan dadkana la isu guuriyo taa waa soo jeedi lahaa talaahan waa tahay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaynu imaanay dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland muxuu yahay baaqaaga ugu dambeeya u dirayso dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan u dirayaa inay ka shaqeeyaan dawladnimadooda inay ka shaqeeyaan amnigooda inay ka shaqeeyaan kala dameyntooda ayaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ugu baaqaya waxaan kale ugu baaqayaa bulshada ganacsatada iyo dadka ilaahay wax siiyaba bishii barakeysan oo soon qaad baa in ku soo socota inay dadka fuqurada oo waxba haysan inay caawiyaan inay afuriyaan inay ka farxiyaan maalinta ciidda iyagana ganacsatada waa ugu baaqaya waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland inay nabadgelyadooda iyo xasiloonidoodaba ay ka shaqeeyaan meelna ay uga soo wada jeestaan waxyaalaha hadda Puntland ka soo cusboonaanaya wax intaas ayaan ugu baaqaya watahay Suldaan aad baad u mahadsan tahay oo kaga mahad celinayna waqtiga aad nasiisay
daawadayaal gebi ahaanba barnaamijkii gaarka ahaa oo aynu waraysi kula yeelanaynay suldaan maxamed suldaan yuusuf halkaas ayaan kusoo gabagabeynhayaa anigoo cabdullahi in la socodsiinahayay dhanka kaameradana waa safaari cabdixakiim barnaamijkan kiisa xigantana dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo ayaan kaga tegaynaa